shacabka reer Sool ee la dhibaataynayo waa la xoreynaya waxaan kaloo u sheegaynaa Muuse wuxuu soo wareystay Koofi annaguna waxaan soo wareysanay sayidkii laascaana isku imaanay waxaanu diidaynay dagaal la dhaxmara oo dhiig ku qulqulo waxay kaliftay in kaarayaashii laga soo qaaday gabiley tukarag la keenay waxaanu la yaabsanay waxay rabaan waxaanu la yaabsanay waxay sheeganayaan waxaanu la yaabsanahay annaga idin xukunno annaga naga midtii dawladda iyadana waad ku khasbantiin haddaad diidaanna waa idin laynaynaa qarnigii 21aad baa lagu jiraa adduunka wax sidaa u dhaqma lama arag waxaan idin cadaynayaa waxay tahay horena waanu yidhi dalkan masiirkiisa siyaasadeed iyo jiritaankiisa innagu inugu xidhan yahay cid kale kuma xidhna qolooyinkan international community ee meelaha ka yidhaahda tukaraq iyo war meesha la yidhaahda gambare iyo tukaraq iyo laascaanood iyo ari caddeeye iyo muxuu ahaa yagoori ilaa iyo guumays iyo og war waxay nooga kala duwan yihiin ma jirto hadday halkaa fadhiyaan ama dib loo soo kiciyo oo la yidhaha gambadhaa la keenaya wax u dhaxeeya haba yaraatee ma jirto mana qaadan doono mana qaadanayno wixii saa ku sheekeeyena been ka soo qaada waa been waxaan ka hadlayaa nimanka sheegaanta oo Soomaaliland oran maayo nimanka la baxay sheegaandan baan ka hadlayaa nadarada xumaanta lagu hayaan dhulkayga nalama laha ilaa qaadiga dadka nool meel u dejiyo dhulkayga naga iska leh lagu nala wadaagaan eediyaga soo nala wadaagaan tole ma nihin isu dagaana ma nihin waagii ingiriisku dhulka yimi iyagu way raaceen annagu maanu raacin waa daraawiish baanu nahayn wataan ula dagaalanay koofidii wataan ku leynay dhulkii dagaal ka dhacay dhulkayaga nagaa iska leh dagaalka ay hormuudka ka tahay maamul goboleedka Puntland sidii gacan loogu siin lahaa bulshada reer Sool ama reer Sanaag ama reer Caymeed sidii ay isugu garab taagi lahaayeen xal u raadinta amni u raadinta iyo difaaca dhammaan deegaanadaas in lagala qayb qaato